su'aasha hore oo ah haddii habeen iyo maalin hurday la tagto ama hurday ugu dhacdo salaaddii maxaan ku samaynayaa jawaabtu waxa weeyaan ruuxa hadday salaada hurda ka tagsiiso ama halmaan ka tagsiiyo nebigu wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam ha tukado xilligu xusuusto ama hadday hurda ka tagsiisay xilligu hurdada ka soo kaco haddii uu muxuu ahaaye ruuxu hurdo dheer intuu galo salaaddii dhaafto markuu soo kaco ayuu tukanayaa hadduu halmaamana marka ugu horraysa uu xusuustuu tukanayaa wallahu aclam sheekh su'aasha kale waxay leedahay sheekh allah ku barakeeyo waxaan ahay gabadh ku dhibban dhiigga muddo sannado ah mana garanayo midab iyo waqtigooda salaadiina waan wadaa ma joojiyo isbuucyada maxaad igula talin lahayd waxaan u fahmay dhiig furan baa ku dhacay gabadha ama dhowr furan ka tidhaahdaba haddii ay sidaas tahay oo dhiiggii caadada ahaa iyo kii dhowr furanka ay kala saari kari weydo ama ay kala sixi kari weydo mar midab baa lagu kala gartaa iyo dhanka urka marna waxaa lagu kala gartaa caado aad lahaan jirtay haddii markii hore dhiigga caadada keliya kugu dhici jiray muddadii uu ku hayn jiray markaad joogto waxaad iska soo qaadaysaa inaad caado qabto ma tukanaysid mana soomaysid muddadii markaad dhaafto muddadaa wixii ka dambeeya waa dhiiggii dhiig furankii waaye marka waa tukan waad cibaadaysan haddii aadan adoon muddo helin markii caadadu kugu bilaabatayba dhiig furanku kugu bilowday markaana culimmadu waxay yidhaahdaan waxaa loo noqonayaa markaa midabka inaad ku kala saarto urka inaad ku kala saarto sifaadka inaad ku kala saarto markuu dhiiggu dhiig madow yahay oo uraya markaasi waa dhiiggii caadada markuu madowga ka baxo khafiifo markaasi waa dhiig furanka way markaasi axkaamtiisu saa ku kala qaadanaya marka ma waa inaad midab ku kala saarto ama caado aad lahaan jirtay inaad ku kala saarto labadaa mid weeye wallahu aclam لا تتزوج علي وإذا تزوجت فطلقني ما بناتها هنا كله زوجك يا محلك يا هيلك وسن حتى لك وسنة يفور أنا جاي su-aashu si kale haddii loo dhigo waxa weeye islaanta gabadha la guursanayo ninkeeda shardi ma uga dhigi kartaa hayla guursanin shardigaa ma dhigan kartaa jawaabtu waxa weeye culimmadu laba ra'yi bay qabaan qaar waxay leeyihiin shardigaasi saxba ma ah oo imaamu shaafici iyo a'immo la mida qaarna waxay leeyihiin may shardigaasi waa asixi karaa in la oofiyo hadduu ninku galana waa inuu shardigaa ilaaliyo waxayna u deliishanayaan xadiidkii nebiga fii saxiixi albukhaari ina axaqa maa awfaytum bihi min ashuruuطi ma istaxlaltum bihi alfuruuj xuquuq mid la oofiyo la ilaaliyo waxaa ugu mudan midda aad dumarka xubinkooda taranka ku xalaashateen oo lagugu oggolaaday oo aad ku guursatay shardi la ilaaliya kaasaa ugu muhiimsan marka waxay leeyihiin shardigani waxna ma xalaalaynin waxna ma xaaraamaynin ninku inuu guur labaad sameeyo farad ma aha laasimna ma aha waa shay bannaan waa shay sunno ah uu dayn karo samaynna karayo hadduu marka shardi kula galo inuusan samaynayn oo la guursanaynin shardigaasi waa socon karaa buu leeyahy imaam axmed iyo culimo la mida haddii uu shardigaa ku galo oo uu sidaa ku guursado isagaa xadhig qoorta la galay waa inuu ilaaliyo marka hadduu ilaalin waayo maxaa gabadha u furan waxaa u furan laba mid inay u sabirto oo shardiga hadduu jabiyey ee gurigeeda ilaashato isaga sabirto u dulqaadato waana sida fiican haddii ay u sabri weydo xaq bay markaa u leedahay inay furitaan dalbato
ama inay isfasaqda xaq bay u leedahay xataa duu diiday inuu furo marka xaq buu leeyahay inay fasaqdo inay isfasaqdo sababtuna waxa weeyaan shardigii lagu guursaday baa looga baxay haddii looga baxayna ayaduna waxay leedahay inay go'aan qaadato inay sabirto guriga ilaashatana way ka fiican tahay sidaana waa madhabka imaam axmed iyo keyrkii ay qabaan wallahu aclam inuusan naakala la hadlin la sheekaysan yani marmar badan waxaan ku arkay marar badan waxaan ku arkay isaga oo xiriir samaynaya marka dhaartaas waxay diinta ka qabtaa wuxuuna mar walba ku dhaartaa kitaabka intuu gacanta saaro ayuu arkaa ka dhaarta diinta waxay ka qabtaa adiga wadaadka maxaa ku daba dhigay oo u daba socota inuu intaasoo goor dhaarto adaa ka keenahay marka ma iska daysi in la kala shakiyo oo dadka wada jooga isqaba ay kala shakiyaan noloshay khadhaadhaysaa ma aqaan sheekh Abu Dalha inuu idiin akhriyay warka isaga kalsoonida guriga ku salaysan inuu ninkuna xaaskiisa ku kalsoon yahay shaki ka qabin xaaskuna ay ninkeeda ku kalsoon tahay laakiin hadday timaado shaki iyo isdabagal iyo message-ka akhri iyo telefoonkiisa iyuu la sheekaystaa iyuu la socday waxaasi waxa weeye guriga iyo nolosha way khadhaadhayni wadaadku inuu intaasoo goor dhaarto oo haddana dhaartana adaa ku kallifaya marka ka daba hadho muxuu ahay nolosha ha ku xidhiidhin xidhiidhka dumarka iyo ragga dhex maraayay laazim maaha inuu sheeko guur ay tahay laazim maaha waxyaalo fara badan baa bini aadamku alla mucaamaloonaya waxyaalo badan baa dhex maraya sidaas daraaddeed horta adiga waxaan ku dhihi lahaa wadaadka dhaarta faraha badaneed ka keenayso ka daayo yacni masayrkan iyo mararka qaarkood dumarku xataa waxay gaadhaan ninkii oon guurba u jeedinba ama guursaninba intay masayrka ka badiso marka dambe inuu yidhaahdaba waaban kaga dhabaynba maxaa yeelay yacni waxa weeyaan haddiiba ilaaba masayr iyo rafaad iyo guriga igu haysanayo dee aan iska guursado marka marar badan dumarkaaba ku kallifayaba sidaas daraaddeed guriga iyo nolosha kaala dhaxaysa ninkaaga kalsooni ha ku salaysnaato iyo shaki la'aan middaasi waa midda labaad ruuxu hadduu dhaarto ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado oo uu dhaarta jebiyo kafaara ku waajibaysa kafaaradaasi maxay tahay 10 miskiin inuu quudiyo mid walba hal mir wax ku filan uu siiyo hadduu waayo wuxuu miskiin siiyo marka 3 bari buu soomayaa mar kastoo uu ruuxu dhaarta jebiyana kafaaradaas ku waajibaysa wallahu a'lam جزاك الله خير الجزاء شيخنا سائلتنا وحيلا لهي شيخ وحيلا صوحي زوجكي تلفون ولا صوحي marka wuxuu ku yiri maalin waxa u furantahay laba dalqo hadii aad mid saddexaad doonaysan waa uu raaciyay kadib wuxuu yiri waan xanaaqsanaayo maba furin sheekh saddex dalqo meesha soo laba dalqo mise maba dhicin maadaama uu yiri laba uu furay uu yiri ka saddexaad hadda qabtana waa uu raaciyay kadib wuxuu yiri waan xanaaqsanaaba waxa soo dhan waxba kama jiro horta dalqadaha iyo furitaanku wax lagu ciyaaro maaha walaa tattakhiduu aayaatillahi huzwan buu ilaahay yidhi ilaahay aayadihiisa iyo axkaamta diintiisa jees ha ka dhiganina wax lagu ciyaaro maaha ninka markuu mas-uuliyadda guriga waxa loogu dhiibaya dalqadaha waa inuu degan yahay waa inuu dulqaad leeyahay waa inuu kafiirsi leeyahay waa inuusan degdegin haddii uu furitaan ku dhawaaqo miyirkiisuna maankiisuna markaa joogo furitaanku waa dhacayaa laakiin maxaa dhacaya hadduu 3 yidhaahdo ama 2 yidhaahdo 3du ma israacaan 2duse ma israacaan mise markiiba hal unbaa dhacaysa
mas'alada way mas'alada culimadu ku kala aragti bedelan yihiin siday u badan yihiin waxay qabaan saddex hadii la yiraahdo saddexdu way israacayaan laba hadii la yiraahdo labadu way wada tagayaan saasay u badan yihiin culimada qaar ka midana waxay qabaan meehe saddex haduu yiraahdo hal un ba dhacaysa laba haduu yiraahdana mid un ba dhacaysa ta kale waxay dhacaysaa un markuu taa ka soo noqdo hadduu furitaan kala sameeyay ta kala dhici kartaa ta saddexaadna mar madax bannaan bay dhici karaysa dalqaduhu isma raacaan culimada qaar baa qaba qaarna waxay qabaan way israacaan oo mas'ala khilaafkeedu caan yahay sidaas daraadeed khalad weeye ninku inuu dalqadaha israaciyo dalaaqa iyo furitaanku laba u qaybsama midna sunnadu waafaqsan yahay midna uu khilaafsan yahay bidci baa la dhahaa dalaaqa bidciga waxaa ka mid ah sharciyada khilaafsan haweeneyda iyadoo caado qabta in la furo waa khalad ayadoo oo daahirsatay laakiin daahirsiga ay daahirsatay loogu galmoodo ninkeedii is arkeen in lagu furana waa khalad furitaanka saxda ah waa in ayadoo daahir ah oo intay isdaahirisay aan la arkin oo loo galmoonin in la furo waaye marka ciidada u gaabanaysa waxa kamida dalqadaha markuu ninku naagta xaaska furayo waa inuu san saddexna dhihin labana dhihin hal dalqada ku furo la'alla allah yuhdithu ba'da dhalika amra jaanis baa lagu siiyay marfur haddaad sidaa ku dayso way furmi oo ciidada kaga baxdo haddii aad isbedesho oo xaalad soo gorodhana waxa kugu filan waan soo ceshaday meel fog ka raadin maysid mar labaad baa timid haddana dalqad mar saddexaad dalqad saddexda dalqadood waxa loo bixiyay calashaanisi in jaanis la siiyo guriga iyo reerka sidaas daraad dalqadaha in la israaciyo waa khalad waxay khilaafsan tahay hadiyigii nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam ma israacayaan hadduu ninku rido laba iyo saddex uu dhaho oo mas'ala khilaafiyo weeye waxaase xoog badan inta kale aan garanayo madhabka dhahaya dalqaduhu isma raacaan sidaas daraaddeed hadduu saddex yiraahdo hal dalqad baa laga soo qaadaya hadduu laba yiraahdo hal dalqad baa laga soo qaadaya markiiba hal dalqad baa dhacaysa wallahu a'lam sheekh saa'id kan kulay waxaa jira maalmahan social media ay ugu jirto siyaasi Soomaaliyeed oo beeyinayo xadiidka odhanaya naqsaatu aqli wa diin sheekh xadiidkaasi sixadiisa ka waran iyo waxa laga wado naqsaatu aqli wa diin waan arkay waayahan social media ninkan hadalka soo galiyay siyaasiga yiraahdaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur culimo badanna way radiyeen oo culimada muslimiinta kamida radigoodana waad ka helaysaan muxuu ahaay media dhexdiisa laakiin si gaaban hadaan uga jawaabo xadiidka horta Bukhari iyo Muslim baa wariyay cid isaga ka horeysay oo xadiidkaasi durtay ama daciifisayna ma jirto asaguna waa siyaasiyo xadiid ma yaqaano xadiidku ma sugan yahay mise ma sugna inuu wax ka og yahay u malayn maayo qaab cilmi ah oo xadiiska ama u daciifin karo ama u saxiixin karo maxay yeelay xadiid Bukhari iyo Muslim ku yaalo culimadii ugu horeysay wax daciifiye aysan jirin kumuusan dhiiradeen hadduu cilmi xadiid wax ka garanayo waa mid labaade xadiidka macnihiisana muusan fahmin waxa ilaa xadiidka nabigu markuu fasiray sallallahu alayhi wasallam aayad quraan ku fasiray oo salka u saaray oo aayada quraanka fi suurati al-baqara ku jirta aayatul mudayana ku jirta buu nabigu ku tafsiiriyay sallallahu alayhi wasallam oo masaladu ay tahay dumarka waxa laba la isu daba dhigay inay mid haday halmaanto ta kala xusuusiso xuquuqdii baa la ilaalinayaa xuquuqdii yaa la ilaalinayaa midda labaad weeye xadiidka muusan fahmin oo wuxuusan u fahmin ama intuu fahmay buu kas iska yeelyeel ayuu uga tilaabsaday xadiidku wuxuu ka hadlayaa wax la yiraahdo ishhaad ee kama hadlayo shahaado kama hadlayo waxaan u jeedaa aayaddu waxay ka hadlaysaa nabigu xadiidka u celiyay
ishhaad buu ka hadlaysaa shahaado kama hadlo waxa kala duwan markhaati furka maxkamadda horteeda ah iyo xuquuq ay dadku ruuxu doonayo inuu yani waxa way tawthiiqiyo xuquuqda iyada ah inuu markhaati u sameeyo oo xuquuqdii inayna lumin markhaatiga loo samaynayo iyo waxa kala duwan maxkamadda horteeda markhaatiga la furayo uu kala duwan yahay xadiidka iyo aayaddu waxay ka hadlayaan waa mas'alatul ishhaad ee shahaadada maxkamadda ma ah waa qodob kale isla xadiidka laftiisa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku cadeeyay dumarka markuu yiri naaqisaatu aqlin wa diin waxay yiraahdeen naqsiga aqliga naga ku jira muxuu yahay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam soo aayadii quraanka ahayd soo ilaahay laba iskuma lamaanin say isu xusuusiyaan markay ta kala halmaanto waa halmaan baa laga hadlayaa naqsaanta diintanadu maxay tahay bay weydiiyeen wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam soo raggu markay cibaadaysanayaan ayagu salaad iyo soonka kama tagaan waa markay caadadu ku dhacdo taana waa nuqsaanta diinta ma aha waajib ay ka tageen oo dambi ku leeyihiin maaha laakiin macna wax weeye raggii muddada way cibaadaysanayaan ayagina cibaadadii way ka fadhiyaan salaadii iyo soonkii cibaadaadkii caadadu diidaysa waa mid saddexaad wax la yaab kale waxay tahay ninkaasi xadiidka inuu duro oo meel kaga dhaco oo inkiro wuxuu u samaynayaa oo hadalkiisa ku cad in uu dumar helo siyaasadda ku taageera bimacnaa wax weeye xadiidkaasi ma jiree siyaasadda waad geli kartaane haddaan kursiga qabtana dawladda waan idinka qaybgeline taageera waay ma siyaasad iyo adduunyo iyo kursi la raadinayo ayaa diinta loo inkiraa oo xadiista nebiga loo inkiraa laakiin waxaadan kula yaabin soomaalida raggii dalkooda burburiyey oo dhiiggooda daadiyey oo karaamadooda ku ciyaaray oo sharafkooda ku ciyaaray oo qixiyey oo dhib oo dhan u geystay ayay abaalgud uga dhigeen inay kursi saaraan oo madax ka dhigtaan haddana tii intay ka soo tagtay ayaa waxaa yimid diinta duriddeeda in kuraas laynagaga raadsado shalay dal la burburiyey iyo dhiig la daadiyey iyo ummad la baabi'iyey baa kuraas lagu helo rag baa kuraas ku fuulay maantana way ka soo gudubtay oo diintii oo la caayo oo lagu xadgudbo ayaa kuraas laynagaga raadinaya caqligeennii iyo diinteennii iyo dadnimadeennii ayaa marka la tijaabinayaa oo nin walba maalin kursi ku raadinaya marka uu xadiiska nabiga duraya sallallahu alayhi wasallam oo uu inkirayo dhanka kale wuxuu amaanayaa Angela Merkel buu amaanayaa Angela Merkel habar gaalnimo ku weynaatay oo 70 jir ah oo inta gaalnimo kula ekaatay ayuu amaanayaa dhanka kale meeshuu xadiiska nabiga duraya sallallahu alayhi wasallam culimadii muslimiinta ayuu ku been abuuranayaa oo uu leeyahay axaadiisii meelahan ka soo ururay wadaadadu sheegaan oo jeebkooda ka keeneen culimadiina waa ku been abuuranayaa gaal 70 jirana waa amaanaya waxaan leeyahay gabdhaha muslimaadka ah qaabka in la idin la hadlo oo ninka iyo wax la mid ay qaabka idin la hadlaan aqligiina iyo garaadkiina ay fududaysi ku tahay asagu wuxuu isleeyahay dumarka wax kaga raadi laakiin aqligiina iyo maskaxdiina iyo dadnimadiina ku ciyaaraya asagiyo wax la mid ah markuu ku og yahay ruuxa inaad fahmi karto waxyaalaha qaarkood kugula soo degdegi maayo laakiin dumarkiiba wuxuu geeyay heer lagu ciyaari karo maskaxdooda lagu ciyaari karo been loo sheegi karo diintooda lagu falaadi karo kadibna la dhihi karo idoorta kuraas baan idinka dharjinayaa war waxba kuraas naga dharjinay diinta nabadgeli sooma baan in la yiraahdo war kuraastaada ma rabna iyo adduunyadaada toone adaro diinta noo nabadgeli in la yiraahdo u baahan yahay laakiin waxaan rajaynayaa gabdhaha muslimaadka ee Soomaaliyeed ee maanta jooga inta way ka wacyi roon yihiin way ka aqli roon yihiin way ka diin roon yihiin in diintooda la duro oo xadiiska nabigooda la inkiro oo culimadooda wax laga sheego oo la yiraahdo taageera kursi baan ku helayaa ma sidaasan doqomo u nahay ma ilaahay heerkaasaan doqomo nahay maya abadan
sidaas daraaddeed isagiyo inta la midkaba abaalkoodu waxa weeyaan waxa ay axaadiista u ingareen oo gaalada u ammaananayaan oo kuraasta ay ku raadinayaan kow horta kuraasta inay waayaan oo ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugto kaasoo kale wax loo dhiibtana ma aha wax kursi la siiyana ma aha wax ummad muslima hogaamin karana ma aha wax mas'uulana ma aha ummadaha uu ka hadlayay gaalada dhaqamadooda ilaaliyaan culture-kooda ilaaliyaan kaniisadooda ilaaliyaan baybalkooda ilaaliyaan waa ummadan uu amaanayo laakiin wax weeyaan adigu culture-na ma lihid diinna ma lihid dhaqan ma lihid ummad baa doonaysa marka inaad qaabkaasi wax kaga hesho sidaas daraaddeed waxa noocaas oo kaleeta ah quraanka kariimka baan la yaabay sida uga warramay ninkaas waxa la yiri wadaad buu ahaan jiray dadkii wax akhristay buu kamid ahaa waxaan la yaabay quraanka kariimka markuu ka warramayo ruuxa diinta wax ka fahmay ee haddana insilaakhay isagoo diinta garanaya ka dhaxbaxay wuu ka daran yahay ruuxa jaahilkeen diinta garanaya Allah wuxuu ku tilmaamay famathaluhu kamathali alkalb ya watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب أي أوكلوا إلهي تصالة وقدقه روح انتو الدين تبري أو قرانيا هذا الدين تكدح سيبتي والدنيا كدورتي وكرسي أقح الشيء وحول أقح الشيء وسيدا أقدح بحي دينتي إلهي وحكوت المامي إنو أي أوكليه ayga tilmaantiisu maxay tahay hadaad eridana wuu hiraanhiraya carabku laalaadinaya hadaad iska dayso uu nasan yahayna carabku laalaadinaya waa hiraanhiraya laba gooraba waa hiraanhiraya carabku ariyadu daadinaya ilaahay miisaal xunbu ka bixiyay sidaas daraadeed waxa noocaas oo kala ah wacyiga ummadda muslimka ah gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed wacyigoodu waa ka sareeya maanta in lagu siro in culimada la caayo أحاديث النبي قال إنكره كرسنا لجا راتسدو أنت سي وعيجين وكسرية وأنا رنتي واحد حقيرات يسد عقل جيني مسكحدين اللي قصة بين يوال ما أنت المقدشة تجي وحنا كل ما قبل يضمر بدن أولي يضمر كالسياسة ده كل شراء أما السياسة ده هو ولا إنه جلانا أو الصومالية أو يوين ما موين أبدا أي الله كلنا أنا يعلم كلام وحنا يبي وحوها gabdhahaasi waxay raadinayaan waxay leeyihiin xuquuqdii dumarka ee siyaasadda Soomaaliya rabnaa in la siiyo kootadanadii ama qoondadanadii siyaasadda hana la siiyo culimada ay la fadhiisteen waxyaalaha isku raaceen waxa kamid oo leeyihiin annaga wax shariicada iyo diinta ka hor imaanayo marna ma rabno waxay diintu noo okoshahay baan rabnaa waaba gabdhihii siyaasadda ku jiray kuwii kale iska badaa يا دين تودا إيو رقم كودا إيو كلتشر كودا إيو إني إلى شدان يا أصلا لكن وحوي إن دين حر إيو دين تور إيو حديث إنكر إيو دين تور لو قلت أنتو كراس اللي غيرها سيدا قبلها مسلمات كا عقلي قاسي واهروها وعنديه لها عبد الرحمن عبد الشكور وعنديه لها توبة باكوفرن التوبة كان إلهي أصلا نقو توبة دادنا إعلامي كان النقو خلط كاد قشي إلهينا أقد توبة كان توبadu waa furan tahay inta aad nooshahay laakiin sidaas ummadna ku hogaamin maysid kursina ku heli maysid madaxweynena laga dhigan maayo ummadana diinteeda hadaad ku ciyaarto aakhira la'aan iyo adduun la'aan baa kugu dhici ilaahay u soo noqo wallahu a'lam dadka ka shaqeeya isbitaalka oo lagu qoro lambar hore si hadhowtaan safka u gelin ama fiilada aan u gelin in hore la iga qoro lacag noocaas ah ku bixiyo laaluusha maayda fiilada isbitaalka ka jirto fiilada la gelaya fiiladaasi lambar hore iga si lacag laaluusha ku bixiyo bini aadamka waxyaalaha ka dhaxeeya sida loo soo kala hormaraa loo xaq leeyahay
meeshan dadku ka wada adeeganaya haddii lagaaga soo hormaro cidda kaa soo hormartay baa kaa xaq leh sidaas daraaddeed inaad laaluush bixiso oo aad ka hormarto waa laba dembi weeyaan laaluush baad bixiso lacnad baa kugu dhacday lacana allahu araashi walmurtashi buu nabiga sallallahu alayhi wasallam ka bixinaya laaluushkii ka qaadanayaba lacnad ha ku dhacdo midda labaadna waxa weeye xuquuq aadan lahayn dad kale aad xuquuqdiisii qaadatay oo si khaldan ku qaadatay Soomaali hadaynu nahay dhibaatooyinka ina haystay kamid tahay sabir darradu ummadaha kale waad aragtay way iska dul qaadanayaan safka iska taagnaanayaan xilligii waqtigooda ay gaaraan bay xaqooda qaadanayaan laakiin inaga ma sabri karno kolba waxaad arki isagoo safka dhinac ka galayo kolba dhan ka galayo dad inuu boobo doonayay laaluush bixiyo marka waa khalad waa laaluush xaraan ah iyo xaq darro oo xuquuq dalday lahaayeen oo qaadatay way wallahu a'lam بسم الله والحمد لله والثناء والله والصلاة والسلام على رسول الله توفيق الله ينوفج إلهي توفيق الله ينوفج إلهي تبارك وتعالى دينت الله ينوبركي أولاد الله ينوبركي وقريها الله ينوبركي ونولش الله ينوبركي وخاتمة الله ينوهجاتي وإلهي آخري أدون بهين الليبانو والشرك يوحي في دنا الله ينقصر فيه وإلهي لبدا دارود بهين نقول ليبانو إلهي ذنوبتي أنها ضعف والدينتنا الله نحرس انت دمتي الله نحرس انت جيرن الله عافيه انت عليسك هيست عليسك الله كقاضو إلهي تبارك وتعالى وحي دباتي سو سقطها هنا غرمري وحي دباتي جيرتنا إلهي هنا قاضو انت إلهي تبارك وتعالى لنصنا إلهي هانونيو إلهي با ويديسننا تبارك وتعالى أدوني آخربا وحي أن جعل الله إنه ينسيه وحن نعبنا إن إلهي نقصر فيه إلهي نجندي سفر دوسه إنه كل ميو عذاب كيس إيه عردي سنة إلهي نجا إلهيو هو الدنيا آخرب اللي باننا الله نجا ديجو روح ولمنا مراد كيس خاص كالله وسهله مراد دينا خاص كيو كوي نعم كاب الله ينفض ديو الله تبارك وتعالى كريه إننا نبض الله يدين كوجيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ ثقة قبل واحد عاش قريش عاش قريش يا قبل إعلان جديد عاش